waxaa magaalada Muqdisho ka jira guux xoogan oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed iyo tallaabooyinka laga filan karo in uu qaado madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo loolan dhanka awoodda dalka uu kala dhaxeeyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. bishii hore ayuu Farmaajo sheegay in uu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Rooble wuxuuna isku dayay 27 December in uu dalka afgambiyo markii labaad sanadkii tagay gudihiisa balse laga hortagay. waxay laba maalin ka hor mar kale Farmaajo iyo Rooble isku qabteen arrin kale oo ka baxsan doorashada dalka taasoo ahayd fasixidda lacag gaaraysa 9.6 milyan oo dollar oo Abriil 2018 laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho taasoo ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta. Rooble ayaa amar ku bixiyay in la fasaxo lacagta oo dib loogu celiyo dowladda Imaaraadka, laakiin waxaa ka soo horjeestay go'aankiisa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna siiyay gudoomiyaha bangiga dhexe amar ah inuusan bixin karin lacagtaas oo uu sheegay in sifo sharci darro ah ay ku soo gashay dalka. welina meel uma dhicin kiiska iyadoo gudoomiyaha bangiga dhexe aysan jirin tallaabo uu qaaday, mana la oga amarada Farmaajo iyo Rooble ee iska soo horjeeda midka uu qaadan doono. Imaaraadka ayaa hadda isku dayay inuu dib u soo laabto iyadoo uu ka faa'iideysanayo khilaafka siyaasadeed ee labada hogaamiye ee dalka ugu sareeya. siyaasiyiinta mucaaradku waxay leeyihiin wax walba waa laga filan karaa Farmaajo maadaama ficiladii oo horay ugu kacay ay muujinayaan damiciisa guracan ee xukunka dalka uu iskugu dhajinayo iyadoo filla Soomaaliya joogo muddo sanad ah oo dheeraad ku ah muddo xileedkiisa. waxyaabaha laga filan karo ee uu Farmaajo ku dhaqaaqi karo ayaa waxaa ka mid ah inuu magacaabo ra'iisul wasaare uu ka soo xushay mid ka mid ah beelaha ugu tunka weyn gobolka Banaadir oo isaga difaac u noqon kara. waxaa sidoo kale uu sameyn karaa in uu mursal ku amro in uu furo golaha shacabka si uu u abuuro qorshe Rooble xilka looga qaadayo. waxa uu sidoo kale Farmaajo ka shaqeeyay in uu fashilmo shirkii maanta u soo gabagaboobay madaxda maamulada iyo ra'iisul wasaare Rooble, waxaana u suurtageli weysay in shirkaasi uu ku soo dhamaado fashil oo ahayd rabitaankiisa. dhinaca kale Muqdisho waxaa ka taagan loolan adag iyo dagaal siyaasadeed oo laba dhinac ah, waxaana maanta si nabadgelyo ah ugu soo gabagaboobay shirkii arrimaha doorashooyinka dalka. Dani iyo Axmed Madoobe oo muddadii 4 sano ee la soo dhaafay dagaal kula jiray Farmaajo ayaa helay hadda xulafo muhiim ah kaasoo ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo iga faa'iideysanayaan khilaafka kala dhaxeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. labadan hogaamiye ayaa horinaya xiisadda siyaasadeed ee ka jirta caasimadda dalka iyagoo shirkii Afisyooni ee soo dhamaaday keenay ajanda ah in amniga qaranka si buuxda looga soo wareejiyo Farmaajo looguna madax baneeyo ra'iisul wasaare Rooble taasoo madaxdu isku khilaafeen. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani waa musharax qarsoon oo isku diyaarinaya inuu u tartamo xilka ugu sareeya ee Soomaaliya, waxaana uu ku jiraa halgan sidii uu isaga horleexin lahaa Farmaajo oo ah musharax daarood ah oo uu ka baqayo maadaama inta badan musharaxiintu ay ka yimaadeen beelaha Hawiye. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku gacan siinaya Dani tartanka xilka madaxweynaha Soomaaliya maadaama haddii uu ku guuleysto ay meesha ka baxayso faragelintii villa Soomaaliya ee maamulka Jubbaland oo isaga boqortooyo uga dhisan tahay. Rooble ayaa hadda ku baraarugsanayn dhagarta labadan hogaamiye ee danta gaarka ah wata, lamana oga in uu socon doono hadafkooda ah in Farmaajo la wiiqo awoodiisa oo laga dhigo musharax meel cidla ah taagan oo aan wax saameyn ah ku lahayn masiirka dalka iyo doorashada. wararka ayaa sheegaya in Rooble uu ku fikir yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdilaahi Dani isla markaana waxa ay doonayeen in amniga qaranka Farmaajo laga wareejiyo, waxaana ka soo horjeestay Qoorqoor iyo Lafta Gareen oo ka biyo diiday in qodobkaasi lagu soo daro ajandaha shirkii soo dhamaaday.